subax wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan qaybtan ku dul istaagi doonaa go-aanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirkoodii uga socday magaalada qaahira ee caasimada dalka masar wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabtu waxa ay go-aan isla qaateen oo ay soo saareen in ay lama taabtaan tahay madax banaanida dhuleed badeed ee Soomaaliya isla markaana ay garab taagan yihiin waxay sheegeen in ay taageero hiil iyo hooba la garab taagan yihiin Soomaaliya waxay sidoo kale digniin u direen dawladda Itoobiya oo ay uga digeen damaceeda ku aadan xadgudubka madax banaanida iyo midnimada Soomaaliyeed ee ay ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqyada waliba ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya oo ay ku sheegeen inay tahay mid kala qaybina mana aha markii ugu horeysay oo golaha wasiirada arrimaha dibadda ee carabtu ama jaamacadda carabtu ay soo saaraan go-aan ama kharaar ay kaga hor imaanayaan damaca Itoobiya ee ah rabitaankeeda bad iyo bari dhul Soomaaliyeed in ay qaadato iyadoo markaas dhinacyo qaabab kala duwan ku qaadanayso u soo maraysa sida heshiiskii Muuse Biixi ay la gashay 1 bishii koobaad 2024 sanadkan hadaba go-aankan muxuu ka bedelayaa damaca Itoobiya maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba iyadoo waliba la ogsoon yahay wasiirada halka fadhiya inuu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda dalalka carabta qaarkood oo heshiiskan markay Muuse Biixi iyo Itoobiya wada saxiixanayeen qayb ka ahaa oo dilaala ka ahaa waynu dul istaagi doonaa taageerada ay sheegeen dalalka carabtu inay Soomaaliya la garab taagan yihiin iyo sidoo kale go-aanada ka soo baxay ay sheegeen inay laba taabtaan tahay madax banaanida ummadda Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed dalku soo xadgudbana aysan marna u dul qaadanaynin qodobkeena koobaad ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad xukuumadda Muuse Biixi shalay talaabo ayay qaaday waxay shaaciyeen in laga bilaabo taariikhda iyada oo shalay ahayd in la xidhay maktabadii Masar ay ku lahayd magaalada Hargeysa maktabad meel maktabada waa maktabadii waxa Masar baa meel maktabada ku lahayd magaalada Hargeysa oo de arrimaha islaamka iyo masaajidda iyo madaarista iyo waxaas ay ka caawiso oo hay'ado ay dhisteen marka masaari ay leeyihiin waxay sheegeen in maktabadii la xidhay shaqaalahana 72 saacadood bay u qabteen oo waxay dheen dalka iskaga baxaan Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland iskaga baxaan intaas bay warbaahintii qaada dhigaysa ay leedahay Soomaaliland oo talaabo adag qaaday Masar oo laga eriyay Soomaaliland waa la xiray maktabadii waa la xiray maktabadu maqsuuliyad bay ahayd ma safaarad bay ahayd maxay qabanaysay maxay ahmiyada ugu fadhidaa Masar oo maktabad laga xiray maxay soo kordhinaysaa yaa wax ku weynayo ku qadaya iyadana waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa go-aan ka soo saaray shir maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada qaahira ee caasimada dalka Masar wasiiradan arrimaha dibadda go-aan ay soo wada saareen ayay ku cambaareeyeen damaca Itoobiya waxay sidoo kale ku taageereen dawladda federaalka Soomaaliya iyo ilaalinta ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadooda iyagoo sheegay in ay lama taabtaan tahay madax banaanida dhuleed badeed ee dalka Soomaaliya dalku soo xadgudbi karana uusan jirin qawaaniinka caalamiga uusan ogolayn dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dhulkeedana iyadoo ay mas'uuliyad ka saaran tahay cid ku soo xadgudbi kartana aysan jirin dhanka kale Itoobiya digniin u direen oo ay dhaheen Itoobiya ilaali qawaaniinka caalamiga xuduudaha caalamiga iyo sidoo kale dalalka madax banaanidooda ilaali bay ku dhaheen arintan marka wasiirada meesha waa wasiirada horta arrimaha dibadda wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabtuna qaybo kamid ah sida hadda wadankan isku taga Imaaraadka Carabta la yiraahdo heshiiskan Muuse Biixi markii la galay Abiy Ahmed Addis Ababa dhex fadhiyay oo Imaaraadka dilaalka ahaa dilaalka koowaad bay Imaaraadku ahaaba badanka wareejiskeeda Imaaraadku qayb buu ku lahaa percentage baa u saaran oo weligeed u saarnaanaya haddii 50 sano lagu heshiyo hadday qaadasho noqotona dee dilaal weyn weeyo Imaaraadku wixiisu hal mar gaf Itoobiya ka siisanay bilyan Itoobiya hal mar ka qaadan ka shubani yar uga qaaday hal mar ka qaadayaaba saasoo kuga dhaxbaxay marka Imaaraadku dilaal buu barnaamijkan ka ahaa oo goob joog buu ka ahaa dalalka carabta haddaba go-aankooda marka muxuu yahay
dalalka carabtu waa wax khiyaamo badan, damamara badan. cumaamadahan ay qabaan iyo khamiisyadan ay qabaan yayna sirin. dalalka carabtu iyagaa cadow isku ah, oo dalalka muslimiinta ay cadow ku yihiin, oo cid walba oo muslim ay cadow ku yihiin, oo waxay caadaysteen oy dabadhaq u noqdeen inay gaaladun iska dhaadhiciyaan oo isku garab xoqaan. hadda fiiri, falastiin maxaa ka socda, ciraaq maxaa ka dhacay, yemen maxaa ka dhacay, libiya maxaa ka dhacay, suudaan maxaa ka socda, wadamadii awey carabta, wadamadii ugu dhaqaalaha badnaa awey, raggii ugu adadkaa awey, raggii ugu aqliga badnaa awey, raggii ugu taajirsanaa awey, raggii ugu maskaxda badnaa awey, raggii gaalida ka yaabiye awey. xaggay aadeen? xaggay ka baxeen? yaa loo adeegsaday? carab baa loo adeegsaday. waxay caadaysteen marka midba midka kale inuu khiyaameeyo, midba midka kale uga dhuunto, afka wax la iskugu sheego basa, laakiin uurka aan jirin. wasiiradan marka way ku mahadsan yihiin horta intay banaanka kaga dhawaaqeen, laakiin soomaali waxaan leeyahay khiyaamada iska ilaaliya. carabtu wadan caraba oo doonaya wadanka kale inuu noqdo amni, inuu noqdo wadan horumar leh, inuu madax banaanaado, inuu cadow ka madax banaanaado, wadan raba ma jiro. kuwa ka kaluu jaajuusaya, kuwa ka kaluu wax ku qaadanaya, gaaladaasaa loo daba dhaqaya. hadda fiiri, ina salmaan maxaa haysta, maxamed salmaan maxaa haysta, maxamed binu salmaan maxaa haysta, waa kaa iska tubanaya washington, dalkiisii ugu awooda badnaa, ugu dhaqaalaha badnaa, muslimiinta hoygeeda ku yaalay, ee la rabay inay ka dhiidhiyaan dhibaatada shacabka reer falastiin ee qasdi la xasuuqayay, ka dhiidhiyaan oy ka hadlaan. hal maalin kama hayn hadlin, hal maalin wansi kamuusan hadlin. bale waxaaba la sheegayaa dhaqaalaha yuhuudda la siinayo qeybta ugu badan bay sacuudigu bixinayaan, qeybta ugu badan ayay sacuudiga bixinayaan. marka soomaalida marka waxaan leeyahay lagu kadsoomin, carabtoo meelahooda iska qilqayliyaan, ha dhahaan taageeraan bixinaynaa, waxbaan dhiibaynaa, soomaaliyaan garab taaganahay, hini ha iska wadaan, laakiin dhag jalaqa u siinina, waxba kama jiro. go-aanka maanta uu waxawey shirka uu shir guddoomiyey wasiirka arrimaha dibadda fiqi, dee waqtiga dhaqaalaun baa ku baxay. laakiin carabdun sooma carab waa dad liita wey oo daciifa wey, waa dad qadiyad male, mid islaam iyo mid dhuleetoona male. laakiin go-aankaabay iyagu soo saareen, intay soo saareen waa intaa. nuxurkiisu wuxuu ahaa lama taabtaan weeye, madax banaanida soomaaliya, etoobiya ina joog damacaada jooji, arrinta geeska waxa weeye dagaal inuu ka hura ma rabno, buto intaasay soo saareen. go-aanka horta saas waa shirka fiqi uu hogaamiyeyna nuxurkiisu intaasunbuu ahaa. dhinaca kaleeto xukuumadda muuse biixi ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay xidheen maktabadii masar ay ku lahayd magaalada hargeysa. dhowr iyo 10 saac ugu dambeeyay intay soo kala fadhiisteen, dowladda jamhuuriyadda somaliland tallaabay qaaday, jamhuuriyadda somaliland masar oo laga eriyay hargeysa. maxaa la eriyaa? masar meesha maqsuuliyad bay ku lahayd, ma safaarad bay ku lahayd, maxay ku lahayd? ma saldhig ciidan bay ku lahayd? ilaa adduunku wax baa la fiiriyaa, waxaa la eegaa waxaan isagaa ee meesha ka jira, iyo inta uu dhanka siyaasadda marka laga eego intuu la egyahay baa la eegaa. capacity-ga waxa weye siyaasadda ayaa lagu eegaa. maxay ahayd meeshu? maktabad bay ahayd, maktabad oo yaa laga saacidayay dadka baahan, kuwa masaakiinta, masaajida la dhisayo, madarasooyinka. hay-ad baa iska lahayd, shirkad baa iska lahayd, hay-ad hoosoo yar baa iska lahayd oo dowladeeda iyo dadkeeda intay wax kasoo qaaraanto marka waxa weye madarasooyinka iyo meelaha masaajida dayactirka u baahan iyo dadka markaa agoonta iyo wax lagu siisiiya bay ahayd. yaa khasaare ku qaba marka haddii la xidhay? adigaa khasaare ku qaba, aday wax kuu qabanaysay. way iska tegi garan way ka furan, way iska tegi kismaayay ka furan, way iska tegi dhuusamareeb bay ka furan, jawhar bay ka furan, baydha bay ka furan, beledweyney ka furan, laasacaanood bay ka furan, meeshay rabtay ka furan, meesha iyadu rabto yay ka furan. hawsheedina sidii bay ugu sii socon. adigu marka adaa wax isku waayey, dhaqaalihii baad isku weyday, tabarducaadii baad isku weyday, wixii lagu siinayay baad isku weyday, wixii lagu taakuleynay baad isku weyday, masaajidii lagu dayactiray baad isku weyday, madarasooyinkii baad isku weyday. marka aduun baa ku fashilan waxa weeye ku khasaarsan mooyaane masar waxba kama dhacayo, iyada waxba kama dhacayo. marka intaasaa waxgooyo looga dhigaya, waxgooyo uga dhigayaan maktabadii dhanayda iyaga wax siisiinaysa, ee iyaga wax usoo qaaraamaysa, ee shacabka wax uga soo ururinaysa,
ee lahayd mandaqada yarta way baahan tahay wax uu soo keenaysay iyagoo ay isku direen oo iska ceeriyeen iyagoo baa marka ku baahan waxa la eriyay marka la bombooninayo ee saacadii la soo dhaafay warbaahintooda ay bomboonayaan taageerayaasha musabbix ay bomboonayaan ee wax weyn ka dhigayaan waa inta waa maktabad weeye maktab weeye waxa la xiray kitaabta iyo buugaagta jildigoodii iyo waxaas bay keentaa masaajida iyo dadka waxa weeye wax sameeyay waxaas ku tabarducda iyo dadka baahan iyo dayactirka masaajidka iyo waxaasay qabanaysay hawlahaasay qabanaysay waa hawl muhiim oo bulshada muhiim u ah waxun ma aha laakiin dacdaa faa'iido ku qabay iyadu faa'iido kugumayn qabin ina saan loo fahmo weeye in kitaabo la qaybiyo masaajida la dayactiro madrasooyinka wax lagu bixiyo hawl weyn weeye xagga islaamka marka si walba loo eego hawshii lagu kala argoosan lahaa ama argoos looga dhigi lahaa dowlad ma aha hawl siyaasadeed ma aha hawl siyaasad shuqul kula ma aha waa hawl dadka shacabka ay u baahnaayeen oo ay qabanaysay hay'adan weeye adaa wax lagu qabanayo muhiim hawl weyn lagu hayay adiga hawshii lagu hayay dad raadis ka tag de inta kale magaalooyinka kale ka furani waxba dhibayadu kuma qabto meel walba ay tagtaba baahidu way waxa way dad u baahan baa la helayaa taasina marka bulshada Soomaaliyeed ha ogsoonaato